السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada waa Macalin Maxamuud casharkan waxaynu ku arki doonaa 10kan animation oo saaran ereyga koowaad tube waa tuubo adigu waa weel ama wax hollow yani xagga gudaha ka guduhu ka duleela adaa dhanka waxa laga shubtay dhankaas kale ka soo baxaya hadii aan si fudud u dhahana tube waa iska tuubo ereyga labaad wallet waa boorsada jeebka lagu qaato yes boorso yar waxa jirto kibaandayaasha iyo sharciga iyo lacagaha yararka waxyaalahaas la gashto boorsadaas ayaa la yiraahdaa wallet. I lost my wallet the other day. maalin hore boorsadeeda ay iga dhuntay. Weigh waa yani miisaamid inaa wax miisaamtid. Miisaankan waxaa la yiraahdaa weight. Cabirkii iyo baalkii la saarayeen waxaa la yiraahdaa scale. Yes. For example, the doctor will weigh me. Dhakhtarku ii miisaami doona. Weigh marka waa miisaamid. Yell waa ku qaylin. Shout ay isku macno yihiin. Don't yell at me. Ha igu qaylin. waa isku macno yihiin. Don't shout at me. ha igu qaylin. Ereyga shanaad aborigine waxaa lagu dhawaaqaa yani tusaale hadaynu meel cusub u guurayno ama dhul cusub loo guurayo dadka xayawaanka ama geedahaba adigu wax meesha loogu tagay asal ahaan u leh ayaa la yiraahdaa aborigine. waxay isku macno yihiin indigenous ama native waa dadka asal ahaan meesha loogu tagay iyaga u dhashay. Yes, aborigine. haday badan yihiin aborigines. Australia waxaa jiro qabiil la yiraahdo aboriginals waa qabiilada loogu tagay Australia markii la soo arkay markii ugu horeysay. Yes, for example he studied aborigine culture wuxuu baranayay dhaqanka dadka yani asalka meesha u leh. Affection waa jacayl qofkina jacayl iyo taxadar tus. Yes, for example our parents give us affection waalidkeena waxayna siiyaan jacayl. Yes, erey toddobaad affirm waa xaqiijin waa inaad xaqiijisid waxa kan inay yihiin wax sax ah. Say that this thing is very very true. Affirm ayaa la yiraahdaa xaqiijin. She affirmed the news. warkii ayay xaqiijisay. Yes. erey sideedaad ail waa qofkii inuu xanuunsado. Yes, yani to become sick in short. Sick iyadana waa xanuun, ail iyadana waa xanuun. marka ail waa qofkii wixii xanuujiyay ama his leg ails him lugtiisa xanuunayso. What ails you xanuunka muxuu yahay? erey sagaalaad Ali waxaa lagu dhawaaqaa Ali baa lagu dhawaaqaa ereygan. Ali waa wada yar ama luuq yar, koona yar. taas ayaa la yiraahdaa Ali. Yes. For example, the Ali is dark. luuqaas yar waa mugdi. erey tobnaad ugu dambeeyo ally baa lagu dhawaaqaa. labada erey waa kala duwan yihiin. Ali oo midka kor ah iyo ally waa xulufo. laba wadan ama laba kooxood oo xulufo ah isla shaqeeya. dadka markay iska soo horjeedaan aysan xulufo ahayna waa enemies ama rivals. Okay? laakiin haddii lagu dhaho ally, for example Kenya is our ally. Kenya waa wadankeena walaalaha as garab taaganahay haddiina la soo weeraro inala dagaalgalay. ayaga haddii la soo weerarna sidoo kale jamceedan waxay noqotaa allies. waa inaad meesha ka saaraysaa IES baad ku daraysaa. cashkan intaas ayuu ka egyahay. Keep learning and have a good day. Bye bye.